Garaad Maxamed Xirsi Ducaale ayaa mishiinada oksijiinka ku wareejiyay qaar ka mid ah isbitaalada Buuhoodle. Mishiinadan oo ah kuwa baahi weyn u qabay deegaanku ayaa ay soo dhibeen dhakhaatiir muxsiniin ah oo ku sugan cariga Mareykanka. Garaadka cuqaal dhakhaatiir waxgarad ayaa goobjoog ahaa munaasabadan wareejinta, waxaana ugu horeyntii halkan ka hadlay Garaad Maxamed Xirsi Ducaale. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Ilaahay baa mahad leh. Meeshan aanu hadda joogna waa magaaladii Buuhoodle, gobolka Cayn, magaalo madaxdeedii. Halkan waxaa fadhiya dhakhaatiir dhowra, laba dhakhtar iyo gabadh qualified nurse oqaashi dhowr qof oo hadda aanu saleelay. Waxaanu doonaynaa maanta halkan inaanu mahadna uga celinno, kalana wareegno muxsiniin dhakhaatiira oo reer Mareykan ah iyo khiyaar kaloo kala shaqaysay hawsha oo na soo gaarsiisay laba mashiin oo ah kuwa oksijiinta. Mashiinadii oo hadda hortayada yaalla, labada mashiin Mareykan baa laga soo diray, meel fog bay soo mareen, Ethiopian Airlines bay la socdeen, Addis Ababa, Hargeysa, annagana shalay bayna soo gaareen. Alxamdulillaah, waxaa hawshaana soo gaarsiiyey oo ka howlgalay laba dhakhtar iyo saaxiibo kaloo iyaguna gacan ku siiyey. Doctoresa Deeqa Cabdulaahi Jaamac iyo Dr. Ismaaciil Macalin. Deeqa Cabdulaahi Jaamac, Deeqa aabaheed wuxuu ahaa diisagii ugu horreeyey Buuhoodle markii degmada laga dhigay, ugu horreeyey halkan yimid. Nin caana oo muxtarim ayuu ahaa, ixtiraamkii baa iyana weli xasuusan tahay iyo wada shaqayntii beriga way xasuusan tahay. Sayigeeda oo ah Cabdisamed Cawil Cabdidhiif oo isna juhdi badan geliyey, oo markii Hargeysa la keenay ay noqotay in laga soo saaro anigoo ah Garaad Dr. Maxamed Xirsi Ducaale, wakiil ka ah dadweynaha reer Buuhoodle ee loo keenay qalabkan faa'iidada weyn u leh, iyo bahda caafimaadkaba labadabana wakiil kaga ah. Waxaan mahad weyn, Ilaah baa mahadle u soo jeedinayaa dhakhaatiirta hawsha ka howlgalay, juhdiga ku bixiyey, kharashka ku bixiyey, soo dhoofiyey labada mashiin oo faa'iido weyn u leh mujtamaca halkan degan. runtii aan jeclahay inuu wax weyn ka diri doono qaybaha emergency-ga, qaliinka, gabadha la qalayo ilmaha lagu qalayo, gynecology-ga iyo waxyaalo badan oo kale inuu ka anfici doono, siiba emergency wixii ah oo dhan oo runtii mararka qaarkood ay dhib nagu noqoto inaan oksijiin helno oo qofkuba laga yaabo inuu horteedu ku dhinto isagoo oksijiintii u baahan. Alxamdulillaah, qalabka iyo qalab kaloo ka soo horeeyo oxygen cylinders waxay degmadan soo gaareen dhowaan, mid walbana meeshii ku habboonood baanu dhignay. Hadda labada meelood ee aan hadda sheegnay baanu dhigaynaa labada mashiin, ummaddaana looga faa'iideyn doonaa. Waxaanu idin leenahay dadkiinii muxsiniinta ahaa ee ka howlgalay, juhdiga geliyey, Ilaahay ha idinka abaalmariyo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. أولاً إله بaa mahad iska leh. Ilaahay ka sokoona waxaan mahad celinayaa muxsiniintii ku soo deeqday qalabkan oksijiinta ah oo u baahan yahay gobolku, waana wax muhiim ah oo u baahnaa gobolku, waana baahi loo qabay oksijiinada noocan oo kale in la helo. aad baan magaalada ugu yaraayeen, dhowaan waatii in xoogaa la keenay, intii baa awal la isticmaalay maasha Allah. maalinta ka dambaysa haddii wax lagu soo daro gobolku isagaa buuxsamaya. aniga magacaygu waxa weeye Dr. Jaamac Nuur Maxamed, Dr. Baasiko Nuur Gallaan ku magac dheerahay. meesha xaruntaan joogana waa qaybta emergency-ga, dhaawacyadii wax qaliimaha iyo waxa lagu sameeyo. waa la muhiim aan ugu baahannahay. ilaahayna waxaan Ilaahay ka soo ugu mahad celinayaa dadkii soo dhiibay Dr. Deeqa iyo saygeeda Cabdicasiis iyo ninka la yiraahdo Abdirashiid iyo intii kale ka soo qayb qaadatayba. Raxiim, alxamdulillaah rabbil caalamiin. Ilaahay waa mahad iska leh. Awalan magacaygu waa Dr. Maxamed Cabdi Xasan, kana mid ah dhakhaatiirta ka howlgasho magaalada Buuhoodle.
وإلهي محدث هذه أدبر وقوم هذا علينا إن دمان محسنين تسودي بي لبض المشين يكون كهر ريبة ودكتورة الصديقة عبد الله شامع إسماعيل يا دمان محسنين تكلا سو كسو قيب قاعتي كيني دوده يسو يبين توده يو قرش كيكون بحيان يا دمان انتي كقيب قاعتي با هذه أدبر وقوم هذا علينا iyagana waxaan rajaynaynaa ilaahay meesha ka soo saareen inuu wax khayr qabo ugu bedelo waxaan halkan uga hambaliyeynayaa oo aan ka bogaadinayaa dadka muxsimiinta ah ee soo dhiibay oxygen-madan looga baahan yahay deegaankan oo baahi weyn aad u qaba oo aayaro dhalatay ku yaala meel aad uga baxsan meelaha ay goobaha caafimaadku aad ugu yar yihiin kamid ah oo looga baahan yahay waliba qalabkan aad ugu baahi weeyahay